kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada xogihii ugu dambeeyay aynu ka helayno magaalada muqdisho khilaafka u dhexeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaare rooble. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ku eedeeyey inuu ku tagrifalay dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. qoraal ka soo baxay madaxweyne farmaajo ayaa lagu sheegay inay socdaan baaritaan ku saabsan eedeynta loo soo jeediyey rooble. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markuu arkay qodobka 87 ee dastuurka meelgaarka ee dalka kaasoo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da aasaasiga ah dastuurka, markuu tixraacay wareegtada uu soo saaray 18 Janaayo 2018 ee la xiriirtay ilaalinta dhulalka danta guud si waafaqsan qodobka 43 ee dastuurka meelgaarka ee dalka, markuu arkay xeerkii uu ku mamnuucay ku tagrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilliyada doorashada ee soo baxay 27 Oktoobar 2021, markuu ogaaday in ra-iisul wasaaruhu uu soo galay raad tuhun ah oo muujinaya inuu ku tagrifalay dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markuu arkay in taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fureen baaris loogu gungaarayo tuhunka la xiriira musuqmaasuqa dhulka danta guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markuu garwaaqsaday in ra-iisul wasaaraha uu saaray cadaadis wasiirka gaashaandhigga si loo leexiyo baarista loogu gungaarayo tuhunka la xiriira ku tagrifalka dhulka danta guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markuu arkay in ra-iisul wasaaraha uu 26 Diseembar 2021 wasiir cusub uu usoo bedelay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo aan la dhammaystirin baaristii socotay, taasoo looga gol leeyahay fargelinta baarista socota ee la xiriirta musuqmaasuqa dhulka danta guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynuhu wuxuu soo saaray go'aamadan: 1. maadaama ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu soo galay raad musuqmaasuqa iyo ku tagrifal danta guud uuna haatan socdo baaritaan loogu gungaarayo tuhunkaasi, waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan iyo intii baaristaasi laga soo gunaanadayo. 2. xubnaha kale ee golaha xukuumadda waxay sii wadanayaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka dalka. 3. waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda inay ka fogaadaan ku tagrifalka hantida danta guud ayna dhowraan shuruucda iyo xeerarka dalka. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka ku amray inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidamada badda. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka sarreeyo guuto Odawa Yuusuf Raage amray inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda sarreeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir si waafaqsan anshaxa iyo xeerka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. farmaajo ayaa sheegay in xilka qaadista taliyaha ciidamada badda ay muhiim u tahay dhamaystirka galbaaritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan tuhunka ku tagrifal dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanku. amarka shaqo joojinta taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed sarreeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeyo guuto Odawa Yuusuf Raage inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda sarreeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir si waafaqsan anshaxa iyo xeerarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay tallaabadani u leedahay dhamaystirka galbaaritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan tuhunka ku tagrifal dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidanku. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa faray dhammaan ciidamada qalabka sida in si waafaqsan sharciga iyo xeerarka ciidannimo ugu farab adeegaan dhulka danta guud ee ciidanka iyo hantida ay wakiilka uga yihiin shacabka Soomaaliyeed, taas oo asaas u ah howlgudashadooda. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo war ka soo saartay shirka Muqdisho iyo doorashada Soomaaliya. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Mareykanka ayaa lagu taageeray shirkii uu iclaamiyey ra-iisul wasaare Rooble. sidoo kale waxaa qoraalka walaac looga muujiyey khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda ugu sarreysa dalka. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku bilowday: dowladda Mareykanka waxay taageeraysaa baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee toddobaadkan oo diiradda lagu saarayo horumarinta iyo dedejinta hanaanka doorashada Soomaaliya.
sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay si qoto dheer ah ugu walaacsan tahay dib u dhacyada joogtada iyo khaladaadka waxyeeleeyay kalsoonida hanaanka doorashada. Waa muhiim in hogaamiyayaasha qaranka iyo dowlad goboleedyada ay si degdeg ah ugu dhamaystiraan doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaano lagu kalsoonaan karo, daahfurnaan loo dhan yahay, isla markaana ay walaacyada jira wax uga qabtaan hab furnaan oo la aqbali karo, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Ugu dambeyntii, qoraalka waxaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay taageerto nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, iyadoo wax kasta oo la heli karo uu adeegsan doonto in lagu guuleysto hadafyadaasi. Warkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo aadayo iyadoo qoraal kale oo isla caawa ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu yiri waxaan sii wadaynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho. Wadahadallada toddobaadkan ee madashan horey u jirtay waxay muhiim u yihiin dedejinta hanaanka doorashada Soomaaliya iyo sixitaanka khaladaadka la arkay. Baaqiyadan ay soo saartay dowladda Mareykanka ayaa imaanaya xilli uu soo ifbaxay khilaaf hor leh oo culus oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha in uu ku fashilmay hogaaminta doorashada, isagoo dowlad goboleedyada ugu yeeray shir si looga tashado qofka loo dhiibayo hoggaanka dalka.